Faa'iidooyinka xabasowdada. Xabasowdada oo sidoo kale loo yaqaan Nigella sativa ama black cumin ayaa qarniyo loo isticmaali jiray daawo ahaan. Haddaba waa kuwaana 7 faa'iido oo laga helo xabasowdada. Hal waxay leedahay astaamaha antioxidant. Xabasowdadu waxa ay qani ku yihiin antioxidant sida cymoquinow kaas oo ka caawin kara in aad unugyada ka ilaaliso waxyeelada ay keento xagjirada xorta ah iyo diiqada oxide-ka. 2 waxay saameyn ku leedahay ka hortagga bararka. Daraasaduhu waxay soo jeedinayaan in xabasowdada ay yeelan karaan sifooyin ka hortagga bararka ah, taas oo ka caawin karta yaraynta bararka jirka oo ay suurtogal tahay inay yareeyaan calaamadaha xaaladaha sida arthritis-ka iyo neefta. 3 waxay taageertaa habka difaaca jirka. Xabasowdada ayaa laga yaabaa inuu caawiyo habka difaaca jirka sababtoo ah sifooyinka antimicrobial iyo immunomodulatory, taasoo suurtogal ah inay ka caawiso jirka inuu la dagaalamo caabuqyada iyo cudurrada. 4 caafimaadka wadnaha. Cilmi-baarisyada qaarkood waxay soo jeedinayaan in xabasowdada ay saameyn faa'iido leh ku yeelan karto caafimaadka wadnaha oo ay ku jiraan dhimista heerarka kolestaroolka iyo cadaadiska dhiigga iyo sidoo kale hagaajinta guud ahaan shaqada wadnaha. 5 ka hortagga kansarka. Daraasado hordhac ah ayaa muujiyey in xabasowdadu yeelan karto sifooyin ka hortagga kansarka ah oo ay ku jiraan awoodda lagu xakamaynayo koritaanka unugyada kansarka qaarkood. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si buuxda loo fahmo kartidooda ka hortagga iyo daaweynta kansarka. 6 saamaynta ka hortagga sonkorowga. Xabasowdada ayaa laga yaabaa inay gacan ka geysato habaynta heerarka sonkorta dhiigga iyo hagaajinta dareenka insuliinta, taasoo ka dhigaysa inay faa'iido u yeelan karaan shakhsiyaadka qaba sonkorowga ama kuwa khatarta ugu jira inay ku dhacaan xaaladdan. 7 caafimaadka maqaarka. Saliidda xabasowdada waxaa inta badan loo isticmaalaa si kor loogu qaado daaweynta xaaladaha maqaarka ee kala duwan sida finanka, cambaarta, iyo cudurka psoriasis. Astaamaha ka hortagga bararka ayaa laga yaabaa inay ka caawiyaan qaboojinta xanaaqa iyo kor u qaadista bogsashada. Faa'iidooyinka qudaarta. Fadlan subscribe dheh, loofna saar sheertana ha ka hilmaamin.